بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسيرك ورفافينتا وسير ku-xigeenka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka gudoomiyayaasha bahda saxaafadda iyo bahda saxaafadda guud ahaan maqal iyo muuqaal iyo raadiyo iyo maaragtay telefishan ama fogaal arag dhammaantiinba iyo website-yada saxaafadda ku ka shaqeysa waa mahadsantihiin waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn waxaan dhammaanteen inoogu hambalyeynayaa gaarna idinku sii hambalyeynayaa inaynu maanta u fadhino xafladda daahfurka dhaqangalkii sharciga saxaafadda Soomaaliyeed 2017 ayaan xasuustaa taariikhda hore ee laga shaqeeyay iyo shaqooyinkii badnaa ee laga soo qabtay ka hor Allah u naxariistay injineer Yariisow markuu wasiirka warfaafinta ahaa sharcigani wuxuu ahaa shuruucdii ugu waaweynaayo golaha wasiirada oo ka shaqeynayay ee hor yimid ee dib u eegis iyo sixitaan lagu sameynayay waxaanu ka yimid tabashooyinka qodobo aasaasi ah oo ay bahda saxaafaddu dareen ka qabtay inaynu ka wada shaqeyno la tashiyaynu sameynay shirar baynu ka galnay ama ha noqoto guddi hoosaadka golaha ay khusayso ama ha noqoto bahda saxaafadda iyo guddiyadii loo saaray marka maanta waxaynu dib u eegistii iyo sixitaankii la sameeyay kadib aan taaganahay golayaashii inuu maray madaxweynuhu saxeexay dhaqangelna yahay haddii sharcigii oo aasaaskii ah aynu haysano maxaa inala gudboon ayaa ta u muhiimsan ay maanta tahay dhaqan ahaan haddaan Soomaali nahay islaam ahaan haddaan dad muslimiin nahay iyo sharci ahaan haddii qaanuunkii in kala hagaayay uu yaallo waa marka koowaad sheekhi aayadaha quraanka inoo akhriyay ayaa ka hadlay waajibka qofka muslimka ah saaran aayado quraan inoo akhriyay inoo fasiray axaadiis inoo akhriyay qulu qawlan sadiida hadal wanaagsan had iyo jeer dhaha waxa mardhow qofka markuu ay utiisa gaadho la isku qabanayaa waxa weeyaan waxaad labada carab labada ibood afka iyo meelihii kale oo xadiisku sidoo sheegayo lagu ciqaabi doono marka qof walba mas'uuliyad baa saaran dad islaam aan nahay mas'uuliyadda islaamnimo ku saaran horta ku xisaabtan kullukum mas'uul wa kullukum mas'uulun an ra'iyati marka aad shaqada suxufinimo gudanayso waxaad ka eegtaa berrito maxaad ilaahay la hortagi doontaa adoon cidna ugu xanaynin cidna abaal ugu galahaynin waxa kaloo haddii war ay maqlaan ayad kala jirto oranaysa way baahiyaanuun dadka yani waxyaabaha laynagala dardaarayo adaacu bi warbay maqleen way baahiyeen seefta labada af la weeye saxaafaddu la sheegayo intee bay dhibaato geysanaysaa ee ay ciddii ay ku saabsaneed u geysanaysaa ama qof ha noqoto ama qoys ha noqoto oo waxyaabo kaba caagan inaad ka warbixiso oo ka waranto ayaa jirta markaad mihnadiina suxufinimo gudanaysaan aanan nahay dad islaama maanka aynu ku wada hayno berri maxaad la hortagi doontaa ilaahay inaan shaqo aad qabatay oo duruufta aad ku shaqeynaysaana aad ogtihiin saxaafadda dhaqaale badan lagama sameeyo nolol lagama sameeyo duruuftaad waliba xaaladda aan ku jirno ogtihiin waa naftuhurannimo soo maaha naftuhurannimadii haddaad ifkiina naftuhura ku tahay duruuf adag ku nool aakhirana xisaabi ka dambayso labadiiba yeynaan ku khasaarin ifkiina sumcad iyo wanaag iyo inaad isku koriso waxa wanaagsan sheegto dalkaaga ku dhisto wanaaga u hormarto aakhirana aad ilaahay ka baxsato xagga wanaagsan uga fakato maaragtay la xisaabtan ka qof walba ka horeeya marka inta sheekhna ma ihi laakiin culimadu intay ka hadlayso inta badan waa inaana soran laha maxaad saaxiibada ama walaalaha ka xasuusin lahayd midda labaad waxa weeyaan xagga dhaqankeena Soomaaliyeed waxyaabo ka tag leh ayaa had iyo jeer jiri jiray waxyaabo milgaha iyo sharafta qofka uu ku sheegan yahayna waa jiri jireen oo la oran jiray hebel baa hadlay hebel baa gole ka hadlay ama war soo tabiyay ama gabiyay ama maahmaahay dabadeedna magac iyo sumcad iyo wanaag oo dhinaca wanaagsan ee bulshada wada jirkeeda nabadeeda walaaltinimadeeda amnigeeda ku caanahayo ku magac yeeshay kula halbaxay midna waxa laga yaabaa dhinaca kale ee qaloocan waa safety labada af lahayde inuu lahaa
abwaankii Soomaaliyeed waa kii warmaan dhow ihsaan lagama tago eed haddaad fali mararka qaar sayid maxamed cabdulla xasan ayaa gabayga lahaa war haddaad xataa eed maaragtay ha talax tegin waayo berri ka maalin waxaa laga yaabaa cidda aad ku talax tegayso inaad saaxiibkeeda koowaad aad tahay marka wax la kala had iyo jeer marka aad maaragtay wartabinayso arrin ka hadlayso cadaalad ka fal ugu yaraan oo adigoo xogtii gudbinaya haddana hal cadaalad falo waliba qoladeeda dawladana ana loo cadaalad falo maaragtay ya ma hadsantihiin runtii shaqadaada saanta saddexaad waxa weeyaan sharcigu wuxuu ka ratibmaa xuquuq iyo xuduud hadday dastuurka tahay iyo hadday shuruucda kale tahay xaq aad leedahay ka muwaadin Soomaaliyeed ahaan iyo xaq aad leedahay ka suxufi ahaan iyo xuduud aanad ka gudbahaynin ama ka gudbi karin oo ay ka ratibmayaan isla xisaabtan xuquuqda muwaadin kastoo Soomaaliyeed waa leeyahay waajibna waa saaran yahay dalkiisa ka saaran yahay xuduudiina waxa kamid ah shaqada aad gudanayso maxaa ka ratibmaya haddii khalad ka dhaco anigu runtii sharci yaqaan ahaan iyo qof ahaan ra'yiyan ma fahmi karo sababta qof suxufi ah xeer ciqaabeed loogu ogaayo waxa ay tahay waayo ciqaabta iyo mihnada suxufinimo ee qofka suxufiga waa kala caagan yihiin in sharci ciqaabeed la mariyo taasi waxaan aqbali karna ma aha waase wax u baahan inaynu ka wada shaqeyno wadana meel marino fulintiisi sharcigani waa sharci madani ah xirfad yaqaanka mas'uuliyadiisa madinimo iyo haddii ay ka ratibmaan gaf uu galay anshax marintiisi iyo gudiyadii ku shaqo lahaa inay ka wada shaqeeyaan sida loo anshax marinayo inay ka shaqeeyaan ku saabsan weey laakiin fal dambiyeedka kale ee ka dhici kare qoyskaaga xataa aad ka geysan kartid ilaan xaaskaaga ama aabaha ama walaalka fal dambiyeed baa idin dhex mari karo adiga ka yimid taa mas'uuliyadda dambiye ka ratibanta ma aha mid lagula galgalan karo qofku waa suxufi marka taa horta aan laba u kala saarno shakhsiyan hadday gacani ka dhacdo ama aad dambi geysato sharci gaar ah u leeyahay saxaafadda iyo xirfadaada haddaad ku shaqeynayso laakiin gaf ka yimaado adigoo etigiskii iyo akhlaaqiyaadkii iyo hadday islaamta iyo Soomaalinimo iyo mas'uuliyadda iyo sharaftaadii dhowraya wixii khalad ka dhacaana wada kale leedahay oo sharcigiisii maanta aynu halkan ugu dabaaldegayno daahfurkiisii iyo dhaqangalkiisii sidaynu uga wada shaqeyn lahayd waa guul weyn in maanta aynu marayno 11 qodob oo aad cabasho ka soo jeediseen in dawladani 11kiiba bedeshay oo la saxay oo sidii idinku aad u rabteen in looga shaqeeyay loona bedelay sharciguna wuu koraa wuu dhismaa maalinba meel buu ka sii amba qaadaa bulshadu siday u koraysay dynamic u tahay oo noloshu isu bedelayso taasi waxay tusaysaa dawladda federaalka Soomaaliya hadda jirta xukuumad dawladda nabad iyo nolol waa saaxiibka suxufiga Soomaaliyeed taa waxa marxaati nooga idinka waxay marxaati nooga sharcigan aynu u dabaaldegayno waxay marxaati nooga 11 qodob oo aad tabasho ka jeediseen inaynu la tashiyeen gelinay in sharcigani gobolada iyo dalka oo dhan la tashi soo maray caasimada dhowr goor oo anigu goobjoogan ka ahaa la tashi soo maray ama wasiirkeenii hore ha ahaato ama wasiir daahir galaha noqoto ama wasiir maareeyaha noqoto intaba la tashiyo iyo rog iyo faaqidaad aynu soo marnay marka waxay taasi xaqiijisay inaanu nahay saaxiibka suxufiga Soomaaliyeed taana waxaan rabaa inaad noo qirtaan taariikhdu ilaa way isqoraysaa soo maaha waa mahadsantihiin arrinta kale ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye inaynu ka wada shaqeyno hadday tabashooyin kala jiraan gudida ka dhaqaajiseen ta anshax marinta ama maaragtay sixitaanka khaladka dhaca ayaad ka tawaajiseen waxa kale oo ka dhawaajiseen sharcigu haddii meel ay jiri karaan aan isla akhrino dabadeedna soo jeedin ma haydin ka yimaadaan aan ka wada shaqeyno muddada nooga hadhay waxaan diyaar u nahay wax alla wixii sharciga saxaafadaynu maanta u dabaaldegayno hirgelintiisa galdaloolo oo aad dareensan tihiin in loo baahan tahay in la saxo inaanu idin kala shaqeyno marka idinku wada fadhiista soo la fagura bulshada rayida baa tihiin suxufiyiin baa tihiin aqoon-yahanaa tihiin looyaradiina kaashada annaga kaalmo na weydiista waa ka wada shaqeynaa diyaar baan u nahay in aynu isla saxno gacmaha aan wada qabsanno waxyaabaha inaga hor imanayo oo ummad ahaan iyo qaran ahaanna inagoo wada jir ah aan ka wada tallaabsanno waxaan aaminsanahay suxufiga Soomaaliyeed anigu shakhsiyan qabaa inuu ka mid yahay suxufiyiinta adduunka meelo badan oo kamid ah ugu xorriyada badan bal eega wadamadeena jaarkeena bal eega Afrikada ama Afrika
bal eega dunida carabta bal eega duni kale oo saddexaad ama kuwa qaarkood bal la sheegay inay horu mareen iyo sida suxufiga loola dhaqmo marka waxay tusaysaa Soomaaliya suxufigu inuu kaga jiro meelaha ugu wanaagsan uu xorriyad uu ku shaqeeyo ay uu leeyahay xorriyadu xuduud bay leedahay dunida sideedaba ma jirto xorriyad mutlaq ah oo daba furan oo wax ku xakameeya ayna jirin ama sharcigii Ilaahay baa ku xakameynaya oo lagu gula xisaabtamaya ama sharcigii dalkaasi dhigtay ama dhaqankii ummadda ku xakameynaya marka waxayna xakameynaya had iyo jeer baynay jiraan laakiin inagu aynu nahay kuwa ugu wanaagsan ee meel fiican xorriyada suxufiga ee saxaafadda Soomaaliyeed soo gaarsiiyay aan ogaano siina saxno oo si xoojino maxaynu tabaynaa haddaba oo idin la tabayaa idinkuna ay tahay inaynu ka shaqeyno koow haddii galdalooliyin jiraan sharcigan inaynu saxno laba inaynu dhaamiyaynu u baahannahay ama sharcina wax ka xusaya Freedom of Information Act ama Access to Information in war la helo inaad dawladda war ka heli kartid aniga intaad xafiiskayga la soo xidhiidho aad tiraahdid xogtaas aan u baahanahay inaan wax ka ogaado wasaaradaha aad saasoo kale maareeya aad la soo hadli kartid iyo wasaaradaha kale baarlamaanka aad oran kartaan xogtaas aan rabnaa dawladda dhinacyadeeda kala duwan aad oran kartaan xogtaas aan rabnaa sharcigaana haddii aad dareentaan in loo baahan yahay waa ka wada shaqeynaynaa diyaar baan u nahay inaynu halkaana gaadhno Soomaalidu waxay tiraahdaa Roomo maalin kaliya laguma dhisin baynu mahmaah ah oo aan filayo luqadda waddanka inay ka soo jeedo maanta meel fiican baynu maraynaa inaynu meel ka sii wanaagsan gaadhnana wada jir baynu ku gaadhi karnaa haddeer Professor Dalxa wuxuu ka dhawaajiyay doorashooyinka inagu soo aadanayo imankana aynu idinka laga yaabaa maanta had iyo jeer ha eegin cidda maanta fadhideen wax idin diidan idinka qudhiinu halka uu maareeyo fadhiyo bari inaad fadhiisataan ama aan anigu fadhiyo ama xildhibaanada ama dawladda qaybaheeda kale marka dawladana u tudha oo la shaqeeya barina inaad tacab gashataan ka shaqeeya madaxdii maanta iyo kuwii bariba inaad tihiin aan ka wada shaqeyno dalkeenana aan wada shaqeyno gabagabadii si rasmi ah ayaa inoogu daahfuran yahay dhaqangalka maaragtay sharcigan iyo meelmarintiisu iyo daahfurka xafiiska communicationka ee dawladda xafiiska xiraalinta iyo dawladdu waxay u sameysay dambiyadii dhacay ee hore in laga shaqeeyo oo la baaro oo la ogaado xiraalintu oo xiraaliye gaari ururiyo 15 sanadood ee u dambeeyay maxaa dhacay xadgudubka dhacay muxuu yahay sida waxbaynu ka baran karnaa ugu yaraan taariikhdu galaya idinka qudhiinu suxufiyiintiinii saaxiibadiina ahaa ama walaalihiina ahaa sidii loola dhaqmay si wax looga barto bari ka maalinna looga eexdo taana aan ka wada shaqeyno waxaan qabaa sida aad ugu guuleysan kartaan cid walba waa in ummadana dhaxaad u ahaataan sida dawladdu saaxiibkiisii koowaad aad u tihiin aad noqotaan saaxiibka dawladda saxaafaddu waa awoodda afraad waxaan qabaa inay tahay awoodda koowaad ee dawladnimada iyo qaran dhiska Soomaaliyeed waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh